بسم الله الرحمن الرحيم fariinteedu waxay ku socotaa dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada faraha badan ee isticmaalaysa baraha bulshada inta badan laga yaabo in wax dhaqanka ka baxsan iyo maxaan ku raahdaa isheeg qiyamka islaamka ay ku kacaan waxaan rabaa inaan dhowr qodob tusaaleeyo oo aan kula dardaarmo waan iraahdo ugu horeyn dhalinyarada waqtiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa idin abuuray waxa Allah idin abuuray oo dunida idin keenay oo fursad la idin siiyay tasarrufaadka dunida iyo waxyaabaha muuqda la idin siiyana waxay tahay in aad garataan awoodaha Allah subhanahu wa ta'ala oo idin kugu talagalay ogaada dunidu waa sakhrad iyo balwad iyo maxaan ku iraahday wax naftu ay jeclaysanayso mar waliba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahdaa wahidatil jannatu bishahawaat وحيدة النار بالشهوات جنة waxa lagu hareereeyay wax kasto naftu ka hanayso naartana waxa lagu hareereeyay waxyaabaha naftu jeceshahay sida darteed dunidu waa balwad iyo sakhrad ha aaminin oo ha u malaynin inaad waqti fara badan ku sii waaraysid ficilada aad sameynayso adigoo ku dhex jira ayaa Allah subhanahu wa ta'ala laga yaabaa inuu waqtigaaga halka ku ekeeyo oo nafta sida lagaga qaado magaca duni waxa laga keenay dhawaansho dhawaanshaha waxa laga la jeedaa inay waqti ahaan u dhowdahay jawi ahaan u dhowdahay kadisna ay tahay adigoo aan malaynaynin nafta laga qaadayo gabagiiba ahaa satubdi lakal ayaamu ma kunta jaahilan wayatika bil akhbaari man lam tusawidi adigoo iska nool oo jaahilka ah ayaa malkumoodku ku iimaanaya naftana walaal waxa ka qaadaya wax weeyaan qof aadan transport soo siin aanadna la ballamin malaga nafta ka qaadaya inaad transport siisatana kaagama baahna inaad la ballansanadood meel hebel ku mudeysneedna kaagama baahna sida darteed dunidu waa dhaldhalaal iyo macaan waa dukaan laba irdood leh inta aad dhaxda marayso dukaankaas gudihiisa aad ku socoto ayay maxaan ku iraada quruxdiisa iyo bilicdiisa ku ildoogsanaysaa iridda kala markaad ka baxdana dukaanka waa ka maran tahay ficilada dunida ka jira waa sidaas waqtigu waa iska gabaabsi qof walba uu jaaniska ka faa'iideyso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu raali ka yahay inuu ku sameeyo dumarka dardaarankooda wax weeyaan joog gurigaaga oo ka bixin oo haddii aad guriga ka baxdana ha sameeyna ficiladii jaahiliyada sida ayada quraanka ay tilmaamayso qarna fi baytukun gurihiina jooga arsaaqda Allah bixiya ha ku raadin wada qaldan marka waliba noloshaada Ilaahay baa damaanad qaaday Ilaahay baa ku kafaalo qaadaya aakhirana Ilaahay baa ballan ku qaaday inaad nolol qurux badan ku noolaanayso hadii dunida inta aad joogto aad dadaasho adduunku waa beer kamida waa beerta loogu shaqeysto aakhirada waxa allaala waxaad maanta ku abuurtaa aakhira ku soo go'aya sida darteed waxa waajib ah inaad dunidaada quruxsato Ilaahaaga uga cabsato wax walba aad sameeynaysan aad hubiso mar walba aad u fiiriso waxaan wixii Allah fasaxay ogol yahay maxaan ku iraahdaa qiimaha diintu ka jawaabaya ma yihiin masoo wax adiga iyo shaydaankaaga iyo aad iska quruxsateen waxaad raacaysaa amarka Alle masoo waxaad raacaysaa amarka shaydaanka adiga waxa laga rabaa inaad dunida inta aad joogto aad xis ka leedahay maskaxdaada shaqeynayso energy-ga haysato fursadda aan malakumoodku wali ku soo gaarin aad haysato adiga waxa laga rabaa inaad dadaasho dhalinyaro inta badan mashquulka waxa aad ku tiin waa waxaan la raali ka ahayn waqtigeena waxa aad ku bixinaysaan waxaan Ilaahay ogolayn jirkiinni baad soo qaawinaysaan oo soo dayacaysaan erayadii wanaagsanay baad ka saaraysaan noloshiina kuwa falxumada badan baad ku soo labisanaysaa qof kasto idinka mid ah kan kala dhaleecaynaya oo caayaya oo dacaayadeynaya dhigii iyo cirdigii iyo sharafkii la xarimay buu qof kasta ku xadgudbaya qof kasta waxa laga yaabaa inaad mararka qaar idin la gaarto inaad Allah iyo rasuulkiisa iyo kitaabka iyo diinka wax ka sheegtaan waxaasna waxaad u sababeynaysan u raadinaysaan maxaad ka wadaan markii la yiraahdo inaad soo jeedisaan baraha bulshadan dhaqaale ka sameeynayni Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaqaale ku damaanad qaaday arsaaqdaada waa lagu qoray fakhri kuugu dhici maayo balaayo ku asiib mayso nahnu narzuqukum wa iyyahum ay quraanku meel kamid Ilaahay ku leeyahay adiga waxa laga rabaa inaad u dadaasho noloshaada inaad shaqaysato wax xalaal ah kasab xalaal ah aad ku dadaasho qiyaamaha marka tagta maalka waxa lagu weydiinayaa meeshii aad ka shaqaysay iyo meeshii aad ku bixisay sida darteed waa inaad ka shaqaysaa meel xalaal ah kuna bixisaa meel Ilaahay raali ka yahay ha ku ciyaarin waqtigaaga jaaniska Allah ku siiyay dad badan baan haysan markii la dhashay ee dunida lagu tarmayay dad fara badan baa ku saqiiray oo meesha ka haray dad badan baa iyagu Ilaahay ku jira nolosha ka haray hadda jaanisaad haysataa in fariintan ku soo gaareysana waa macquul waxaad noloshaada ku salaysaa haddaad waqti haysataa timekaaga ku ciyaar
ha aaminin waxyaabahan dunida ka jira inay sii jiri doonaan nafta waa laga soo doonayaa iyadoo qiimo leh laga soo doono ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanku wuxuu ku leeyahay nafta saddex nooca loo qaybiyaa mudma'inna naf xasiloon oo laga baryayay in ilaahay dartiis u soo baxdo markii nafta laga qaadayo irji'i ila rabbika radiyatan mardiya laleey naftan kalena waxa la yiraahdaa amaaratun bisu xumaanay ku amartaa in la waardiyeeyo oo la iska dhiciyo oo la colaytantaa laga rabaa muhiimaddu marka waxa weeyaan inaadan aaminin waqtiga aad haysataa inuusan ciyaar kugu dhaafin oo aad aaminin wax aan sax ahayn arsaaqada adiga ma qoran adiga go'aanka ma lihid waxa aad cunayso maanta iyo berri iyo marka la midna warkama haysid waqtiga aad dhimanaysana lama socotid sida darteed waxa waajiba inaad juhdi ku bixisid inta hadda aad nooshaa inaad waqtiga ka faa'iisid wama tatri nafsun maada taksibu qadan wama tatri nafsun bi ay ardin tamut saasuu quraanku leeyahay berri naf waxa ay shaqaysanaysaa berri ma jirto sidoo kalena ma jirto naf og meesha ay ku dhimanayso oo malagu ugu imaanayo oo maxaan ku raraa ruuxda looga qaadayo mid og ma jirto adigoo qafladda ku jira ruuxdu ka qaadmi karta adigoo qafladda ku jira malagu kugu imaanaya adigoo qafladda ku jira ruuxda laga siibi doona ha rumaysan markaan ha aaminin oo ha isdhihin waxaan waqti badan baad haysataa wali dhalinyaro tahay imisa dhalinyaro ah xabaalaha la geeyo walal imisa dhalinyaro ah ayagu waqtiga ismoodsiinay qafladdaas ku dhintay Allahumma inni a'uudhu bika mawt al-faj'ati fi sa'ati al-ghafla ku ducayso si fiican u dadaal ilaahay waxaan ka magan galayaa hilmaan anoo ku jira in malagu haleelo isla markaasna ruuxda layga qaado oo laygu soo saaro qiyaamaha wixii aan gacanta ku jiray markii aan dunida joogay oo nafta layga soo qaadayay ilaahay taa ka magan gal rizq xalaalana shaqaysa walaal waad heli kartaa wali dhalinyarada energy fiican baad haysataa wax fara badan oo naftaada ka mid ah goosan kartaa adduunku ma ahan ma taqaana ishageen wax balaaran oo waqti dheer badan ma waa magaca adduun waxa laga la jeedaa mid dhawaanshoona wax weeyaan waqti ahaana way u dhowdahay kadis ahaana way u dhowdahay rasaq ahaan way u dhowdahay waxa aad haba yaraatay waqtiga adigu dheeraysan kartidna ma ahan waqtigaana waa jaan go'an yahay dii malaku mawdku kugu soo xaadiro hal minute lagu dareemayo noloshaada kamid